كان وفرينا مدحوينه dabaaldega daahfurka caleemasaarka ururka haweenka SSC qaatimo runtii waxaa farxad weyn oo inaba aan caadi ahayn noo ah kasoo qaybgalkaaga nagala soo qaybgalkaaga munaasabadan sharafta leh munaasabadan ku suntan dabaaldegeena waa farxaynaa xaflad waa samaysanayna waa dagaalamayna dalkeena waa difaacanayna mudane madaxweyne gabdhaheena sharafta leh runtii oo lafdhabar u ah halgankii haddana u ah soo halgamay howl badan soo qabtay runtii maantane munaasabadan u fadhiya banbaxooda soo banaanbaxooda inay yihiin halyeeyadii shalay soo halgamay maanta halgamaya deegaankan dhisan doono hormuudkii heelanayaashii SSC deegaankoodan runtii u nool inay horumariyaan bahalkan jooga ood ku caleemashoysa oo ilaahay idinkii soo banaanbixi doono oo qaban doono waxyaalihii ay ballan qaaday waxaanu samaynay mudane madaxweyne agaasimayaal waxaanu samaynay qayb madaxeedyo maadaamaan ognahay baahida loo qabo gabdhaha baahida gabdhaha loo qabo ma yara inay qayb ka noqdaan siyaasadda inay qayb ka noqdaan hormuudka inay fadhiyaan miiska go'aanka inay talada wax ku leeyihiin inay horumarka wax ku leeyihiin waa la soconaa taariikhda islaamka diinteena muqadaska ah qaybta ay dumar kaga jiraan halgankii qaybta ka ahaayeen siday usoo halgameen siday usoo garabqateen diinteena islaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii risaalada ay kusoo degaysay uu loo soo waxyooday qofkii ugu horreeyey ee garab istaagay ee hawshii culayska badna ee uu dareemo runtii sida ma xamili kartid gabadhii tiri waa xamili kartaa sawjkiisa ahayd ilaahay subxaana watacaala ayaa noo abuuray inaan garab istaagno bulshadeenna raggeenna dalkeena iyo horumarkeena gabdhahan mudane madaxweynaha ujeedid iyo guddoomiye baarlamaan iyo dhammaan martida sharafta halkan joogo waa gabdhihii u heelanaa inay waddankan wax ka bedelaan siyaasadda wax ka bedelaan horumarka ay qayb ka noqdaan shaqeeyaan oo runtii u taagan oo goobjoog halkan aad adigu uga tahay wixii ay soo qabteen oo aan runtii la inkiri karin baahi weyna loo qabay kadib markii dowladdeennan sharafta leh ee la dhisay maamulkeennan oo lagu suntay markii la dhisaayey sabab looga dhigay maadaama aanu ku jirno jihaad maadaama culaysna saarnaa maadaama aad ogeyn dagaalkii qaraaraa ee aan la soo galno cunfigii asnam qaybtii ay dumarku lahaayeen qaybtii ay kasoo dhalaaleen garab istaagooda iyo shaqadii runtii waajibka ahaa inay gutaan oo aan markii la samaynayo maamulkeena hadda sharafta leh hadda la yeelay noo dhisan aan iyaga lagu daran ama aan qayb looga dhigin ee haddase ay heleen fursad maadaama alxamdulillah culayska ilaahay naga qaaday oo dhibaatadii ilaahay subxaana watacaala naga fayday ay fursad u heleen inay maanta aan kaga mahadinayno canab ilaahay khayr ha siiyey dhammaan intii ka qayb xildhibaan canab la yegleelay ururkan haddii ilaahay noqon doono urur wax ka bedeli doono siyaasadeena urur wax ka bedeli doono maaragtay shaqooyinkan hadda qabyada ah maaragtay soo kordhin doono haddii ilaahay idmo runtii caawa farxadda bay ii tahay farxadda markay iga badatana dhaqan baan leeyahay oo dhaqankaasoo ah inaan wax ila ilaawo aniga sideedaba waxaan ahay ilaah baa mahad iskale qof u heelan ama u taagan oo u shaqaynaya bulshadeedii oo maaragtay wax badan usoo qabatay aanu runtii ku faanaynin ilaahay subxaana watacaala fursadaan ii siiyey gabdhaha walaalahay ah inaan garab istaago aan ka mid noqdo hogaamiyaashooda maaragtay ku hogaamin doona shaqada iyagaa iskale shaqada waa la wada qabanaya wax ani igu gooni amaaha laakiin oo ilaahay subxaana watacaala ii kasay ama ii gartay inaan maaragtay garab istaago oon u noqdo horsoodkooda ama hogaankooda madaxweyne صعبي مش هنعاود هاي waxaa runtii aan ku faraxsanahay waxaa layidhi waa caleemasaarayaayo dee caleemasaarkaas baaban aniga waxaan faraxsanahay ba runtii caleemasaarka wax kale iiga weyn waxaa iiga weyn gabdhaheenii maaragtay SSC halgamayaashan inay fursad heleen oo maanta fursaddii dee ay iyagu ku talinayeen ay shaqo ku qabanayeen ee ayaga maaragtay aan cid uga daba fariisanayn taasaa farxadiya marka madaxweyne ilaahay idinkiis wax badan waa qaban doonaa insha allah deegaankeenna waa u shaqayn doonaa mana nihin sidaan annaga ku suntana ama caan ku nahay gabdho ka gambada maaragta shaqada gabdho waxaanu nahay karti leh gabdho waxaanu nahay awood leh awoodna u leh wax badan inay qabtaan awoodna u leh inay dulqaad yeeshtaan dhibaatooyinkii lasoo maray 9 bilood u dambeeyey weli lama arag gabadh SSC ah ama cabanayso ama dhibaato sheeganayso alxamdulilah gabdhahan kartida leh waxaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo aan ogahay aan hubaa inay isbeddel insha allah keeni doona haddii ilaahay raalli ka noqdo
marka madaxweyne annaga waa dhisannahay waa diyaarsannahay agaasimayaasheenii qayb madaxeedkeenii ma aragtay xog hayahayagii agaasimayaasheenu dhammaantood maanta halkaa fadhiyo iyo anigoo insha allah ah gabadhii ma aragtay insha allah hawsha la qaban doonto la garab istaagi doonto baa halkaas ku fadhinaa marka hadalkaya waxba soo badinin hadalka muu badin karo intaas insha allah wax badan canab baa sheegtay khayr allah siiyey oo na garab istaagtay wax badan nala qabatay wax badan na iftiimisay aniga waxaan halkaa un caawa u taaganahay in anaga shaqadiina la siiyo go ahead la yidhaahdo shaqadiina qabsada madaxweynehena insha allah iyo madaxda sharafta halkaa fadhido guddoomiyaheena baarlamaanka ah go ahead na siiyaan insha allah